Pentagon-ka Mareykanka ayaa markii ugu horeysay taariikhda qiray jiritaanka gaadiid hawada sare goosha oo ay leeyihiin qurumo kale oo naga dahsoon. Pentagon-ka ayaa faafiyey muuqaalo video ee ciidamada cirka Mareykanku ka duubeen gaadiidka Soomaalidu u taqaano digsi walaandada. Sawiradan oo lagu duubay kamaradaha heerka sare ee infrared-ka oo saarnaa dayuuradaha US Navy. Gaadiidkan qurumaha kale ay wataan ayaa wax guuxa bixinayn, waxaana mararka qaar ay ku ordaan ama kaba dheereeyaan xawaaraha xiinka iyo guuxa. Bulshada caalamka ayaa iyagoo muddo dheer aaminsanaa in Mareykanku ku qarinayo sirta UFO saldhigyada loo yaqaan Zone 1 iyo 50 oo ay leeyihiin ciidamada cirka Mareykanku. Saldhigan ayaa Mareykanku markii dambe ku farsameeyay dayuuradaha raadaarku qabanay Furtive 11 oo loo maleynayo Mareykanku inuu ka dhigtay farsamooyinka dayuuradaha si loonay qurumaha kale ay wataan oo marsii horeysay ku soo dhacday Mareykanka. Haddaba maxay tahay sirta ku duugan sheekadan ayaa bilaabatay sanadii 1947 kadib markii ciidamada Mareykanku heleen gaadiidka digsi walaandada oo ku soo dhacday degmada Roswell, waxaana la sheegay in dayuuradan uu ku jiray qurumo kale oo loo maleynayo jinka cirfiidka isagu samada duula. Ciidamada Mareykanka ayaa berigaas qaatay diyaaradan iyo wixii ku jiray, waxaana la sheegay inuu ku jiray noolo qurumo kale oo markaas noola, waana ciidamada Mareykanku lagu tuhmi jiray muddo dheer inay ku qarinayaan goob sir oo ku taal saldhigga 1 iyo 50. Haddaba sheekadan ayaa berigaas loogu magac daray dhacdadii Roswell, waxaana laga qoray buugaag iyo weliba fiidiyoyo fara badan. Shacabka Mareykanka ayaa muddo dheer dalbanayay in dowladda iyo Pentagon-ku runta soo bandhigaan oo caddeeyaan arrinka la xiriira jiritaanka qurumo kale oo UFO loogu magac daray. Dayuuradaha qurumaha kale wataan ayaa inta badan lagu arkaa iyagoo dul heehaabaya magaalooyinka waaweyn ee dunidan aynu ku noolnahay. Shacab kala duwan ayaana marar badan sawirro iyo fiidiyoyo ka duubay digsi walaadadan ku duula hawadeena. Digsiyadan ayaa la aaminsan yahay inay wataan qurumo kale oo loo maleynayo inuu yahay jinka cirfiidka oo isagu ku duulaya xawaaraha guuxa ama kaba dheereeya. Madaxweynihii hore Obama ayaa qiray marsii horeysay inuu wax badan isku taxallujiyay arrinka digsi walaandadan qurumaha kale ay wataan. Pentagon-ka Mareykanka ayaa hadda si rasmi ah u furay guddi baaritaan oo loo xirsaaray inay ka soo warbixiyaan arrinkan qurumaha kale iyo khatarta ayba ku hayn karaan noolaha ama bini'aadankan ku nool dunidan korkeeda.